السلام عليكم داود ومر kale muuqaanadeena imtixaanaha aan kaga waramaynay maxay Soomaalidu uga bixi lahayd faqriga. sababta lixitoonadan qeyrkan u gaadhlaanay waa inagoo dad kale aan waxba ka dhageysan yacni dad kale inaga mar walba inaan dhageystaan oo maan doonayna dadka kalena waxba kama dhageysano xitaa hadday wax inoo faa'iideynayaan dhagahayna ma isticmaalno kaliya waan hadalnaa ilaahay wuxuu labada dhagood noo siiyey halka afna inoo siiyey in intan wax dhageysanna ay ka badnaato intaan hadlayno dhageysigu waa dariiq kama dariiqooyinka lagu hanto cilmiga dhageyso dadka ka aqoonta badan waxaanu shaki ku jirin inaad wax ka faa'iideyso haddiiba si aynu bedel weyno dabeecadaas waxayna dhexalsiinaysaa inaanan horumar ka gaadhin shaqadeena maxaa yeelay cidna waxba kama maqashid oo adun baad jecelna hadasho aamuskiina dadka waa shay aad u qiimo badan oo faa'iido weyn u leh noloshana adduunyada aakhirada nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa haataa uu yiri man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay iyo aakhirada rumeeyo ama khayr ku hadal ama iska aamu sababta 17aad waxay noqonaysaa dadka ayaana saameeya qodobkan aad ayuu muhiim u yahay waxaan ku soo koobinaa hal qiso oo cajiib ah koox raha ah oo biyo xareeda ka dhirga ayay koox u wada socda laba kamid ah ay ku dhaceen ceel ay biyo ka buuxaan labadii raha waxay isku dayeen inay ka soo baxaan laakiin si kuma guulaysan ceelka oo dheera awgeed kooxdii kale iyuu ka badbaadeen inay ku dhacaan ceelka ayaa waxay dul yimaadeen ceelka ku dhaceen saaxiibadood waxaanay arkeen iyagoo isku dayeen inay ceelka soo baxaan oo boodboodaya waxaa nasiib daro noqotay xalkii laga sugay inay caawiyaan saaxiibadooda ceel ku jira ayaa waxay isaga yiraahdeen haysdaalina waxba ceel ka soo bixi kara meesaan iska aqbal dhimashada isla markiiba labadii raah mid kamid ayaa ku qancay hadalkooda oo isku dayga joojiyay waana u dhintay isla markiiba kii kale hadalkoodii dhag uma dhigan oo isku dayga buu sii waday ilaa aakhirkii uu ka soo baxay kadib markii rahan la baadhay ayaa wax la ogaaday inuu dhagalaay oo aan waxba maqaynba waxaynu qisadan ka qaadanaynaa in dadka qaar markay arkaan qof ku daalaya fikir fiican rumayntiisa ay isku dayaan sidii ay uga joojin lahaayeen fikirka fiican rumayntiisa marka daawada haddii aad tahay mid himilo leh ama hiigsi ha u dhagan gulaan dadka hadalkooda waxaad ogaataa in dadku markay hadlayaan ay ka hadlayaan aragtidooda oo keliya sababta 18aad Soomaalidu faqriga uga bixi lahayd badankeenu uma ayna shaqadeena jacayl xoogan yacni dhaqaajiyo xoogan dhaqaajiyo wuxuu ka dhigan yahay dabka oo kale dabka marka dhariga lagu shito uu dhaqaajiyaa oo wixii qayriina ku jiray buu bislayaa waa sidaas oo kale xamaasaduna waxay kicisaa awoodda qofka ku kaydsan ee hurda haddaynu soo qaadano qiso dhex martay wiil yar iyo oday xikmadla ah wiilkii yaraaba odaygii weydiiyo kuri awow waa xisirta guush odaygiiba ugu jawaabay waa doonis adag wiilkii yaraaba yidhi doonista adag maxay dhaliyay awow odaygiiba yidhi doonista adag waa mid horaysa oo holcaysa sida dabka oo kale wiilkii yaraaba yidhi oo sidii doonista adag noogu dhalanaysa odaygiiba waxa uu idan ka dalbaday wiilkii yaraa kadib waxa uu soo qaaday weel weyn oo biyo ka buuxaan kaasuu weydiiyey wiilkii yaraa oo ku yidhi ma doonaysaa inuu ku baro doonista adag haa ayaa uu ku jawaabay wiilkii yaraa kadib odaygiiba wiilkii ka dalbaday inuu biyaha ku foorsado odaygiiba si lama filaan intuu wiilkii yaraa qoorta u qabtay biyaha madaxa u geliyey dhowr irbiiqsi markuu madaxa kula jiray biyaha ayuu wiilkii yaraa biyaha ku dhex neefsan kari waayey markaasuu awooddiisa dhantu isticmaalay buu kor uga soo booday kabacdi odaygiibaa la hadlay oo ku yidhi waa taa doonista adagi markaa daawad haddii aad doonayso inaad wax guul ka gaadho awooddaada oo dhan u isticmaal sababta 19aad faqriga uga bixi laanahay oo inoo go'aanay dhiirin aanu hayn shaqadan qabanayno dhiiranidu waa inaad leedahay awood iyo niyad adag oo xitaa jabeel ku wajihi karto adigoon hubsadeen tusaale ahaan qofka doonaya inuu noqdo feeryahan marka hore waa inuu leeyahay doonis adag siduu u noqdo feeryahan go'aan adagna uu u leeyahay siduu tababar adag u qaadan lahaa dhiiranaanna uu leeyahay siduu u waajihi lahaa cadowgiisa saddexda kale aan kusoo sheegnay waxay muhiim u yihiin xaqiijinta yoolkaaga sababta 20aad waxay odhanaysaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin inaanay faqrignimo weligood ka baxaynba haddii aad dhalatay adagoo dhagala indhala gacmala ama aad ka dhalatay qoyska dunida ugu faqiirsan taasi kaa dhigi mayso qof faqiira ilaa aad adigu iska dhigto mooyaane haddii aynu eegino waxyaabaha uu allayna siiyey waxaanu noqon lahayn dad qani ah laakiin dhibtu waxay ka taagan tahay maskaxda ayaynu faqri ka nahay maxaa yeelay weligeen kumaynu fikirin in awoodaynugu jirto aanu qarxino oonu fikirno kadibna aynu wax qabsanno qaar ka mid dadka dunida guulaha waaweyn ka gaadhay waa qaar dhagala ma eegno mana fiirsano nicmooyinka waaweyn uu ilaahay nagu galladaysay marka waxa wanaagsan inaan garanno nicmooyinka ilaahay aanu ka faa'iidaysano